sida naloo xaqiijiyay boqolkiiba 90 waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tagay meesha inay si bini'aadanimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tageen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyay aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini'aadanimo lehna ma aha intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Somaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslim ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadanimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagii xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay asoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide hal yidhaaho walaalayaalow naga noqda hal yidhaaho laakiin si dhaqanka bini'aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay waan soo jeedinayaa waxaana sugaynaa haddii ay bini'aadanimo jirto maamulka Somaliland iyo maamulka Laascaanoba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo asaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa ay hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guracnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn waa arrin aad looga xumaado waxaan codsanaynaa marka maamulka Somaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tegeen maanta ay ku soo noqdaan waxaan codsanaynaa intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini'aadanimo suubiyey oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowladba waa uga mahadcelinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah muwaadiniinta ah oo la dhibaateeyay sida ay ugu gurmadeen oo u soo dhaweeyeen oo u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeyo madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin tilaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xil saarnay guddi ka kooban 5 wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan 5taas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen shaqadii bay bilaabi doonaan waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa dib u dejinna loogu samayn lahaa deegaanadoodina loogu soo celin lahaa ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa ninkii deegaankiisa ku soo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan wax laaliy wixii oo ku baxay oo lagu soo raraayana diyaar aan u nahay wafdigaas wasiirada ahana ka shaqayn doono oo 5 wasiir ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta wasiirka gargaarka wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan gurmadna ay soo suubiyaan markii intaas laga tago waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kaste oo ay ficilkan guracan ay dhibtay oo ka falceliyey ama dareenkooda ka sheegay inay ka xun yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan codsanaynaa
beesha caalamka dowladda federaalka Soomaaliya